السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دليرة الصوماليين مسؤولين تمروينك أصحابتي عن جعل ميرو البيت جوتان صومالوان ميرو البيت جوتو وين دي سلامي قعنتو وقلفو قلبي هذيك السلام ولكن عاقل جنة كان قد ونيدم واحد عاقل ما أنتم حنجعلها إني نلو ذو رانتي سيد درمسان جبوا دقيقة هي رياكشن مجرو مقالة لغا هادلاين مجران لكن waxaan jeclaystay inaan idin sheego labadan biri meesha aan ku maqnaa khusraantii waa iweysiin wax muuqaal ma soo upload galeen laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego labadan biri meesha aan ku maqnaa sababtoo ah waxaa tiin asxaabteyda qayb kamid ah aniga dadka i dhiirigelinay in hooshan aan qabto qayb kamid ah ayaa tiin raantii waxa aan ku maqnaan wax saas u buuran meesanayn waxa ay soo galay safar lama filaana safar degdeg oo raantii Muqdisho aan kaga amar bixi doono sida aan rajeynayna wuxuu qorshaha isbuuca soo socda maalmihiis u dambeeyay in Muqdisho aan iska faarujiyo aan ka faaruqo raantii idinka waxa jeclahay in mar walbaba aad i garab taagnaataan sida shalay iyo maanta aad i garab taagnaateen birini inaad i garab taagnaataan waxa idinku sheegay waxay tahay wax walba nolosheeda ku saabsan sababtoo waxa tihiin dadka aniga i dhiirigeliyay dadka shaqada aan qabanayo sababtoo ah dadka wax walba inaan idin soo gudbiyo waad iga kasbateen raantii sida aan dhihi karo raantii labadan biri marka ku mashquulsana arrimo safar ay u soo baxay oo aan filaynin raantii meesha aan u socdo dad badan oo degdeg isla caaqil inta u socota laakiin meesha aan u socdo insha Allah muuqaal aan kaga soo duubi doona oo waliba surprise si ma lama filaana aan muuqaal idin soo geli doona channelkayga hadii mar walba aad la socotaan raantii hadii macnaha marka ay taa booqshay inuu subscribe noo saar si biri aan kugu soo gudbin wax walba aan kugu soo gudbo wax walba aan saabsan aan kugu soo gudbiyo wax walba nacfile aan kugu soo gudbiyo wax walba aad iga mudan tahay ama aad iga kasbato raantii waxa la dhigi karo qofka shaqada uu haayo waxa ka weyn qofka shaqada haayo waxa ka weyn kana shaqo badan qofka shaqada ku dhiirigelinay sababtoo hadii dhiirigelin aan weydin dadka adiga garab taagan aan weydin waxa ka shaqadaas waa ka nijabaysa ama sida loo baahnaa muu qabanaysid marka waxaan leeyahay waa mahadsantiin boqolkiiba boqol asxaabteena ku xiran channelka raantii waxa tiin dadka mustawaha maanta social media aan ka taaganahay dadka igu dhiirigeliyay waa rajeynayaa mustawaha ka badan inaan gaaro idinkan still aad igu dhiirigelisaan sababtoo social media dhowr jaranjaro ayuu kala leeyahay mustawii koowaad waqti ay saaran waxa tiin asxaab igu garab taagan iguna qaabileeda marxaladda aan ku jiro sababtoo ah markay bilowyin dulqaad u baahan yihiin karti u baahan yihiin wixii kale u baahan yihiin maxay to inaa yeelato qof hadaf leh oo go'aan leh sababtoo hadii aadan go'aan lahayn waxba ma sameyn kartid waxna ma qaban kartid marka waxaan aaminsanahay asxaabtiyo igu xiran inaan dadaalkayga go'aankayga kartideeda inaan isugu soo xiray aad ugu soo kasbatay aan rajeynayo kuwa kale idinka sidiina kale wanaagsan inay igu soo xirmaan iguna dhiirigeliyaan shaqada aan hayo sababtoo ah wax walba cusub dhiirigelin u baahan si uu noqdo wax guuleysta raantii muuqaalka oo jeedadiis wuxuu ahaa inaan ku iibsay inaan safar ahay in bulsho aan ka bixi doono usbuuca soo socda soo xabis bedelo hadii wax isbedelan waa soo socon doona hadii si isbedelin meesha aan u socdo ayaa muuqaal in ka soo duubi doona labo inaad tihiin dad aniga mar walba igu weyn oo misanaba aan iga marin raantii waxa tii asxaabtii ugu horeysay ayaa la wadaago marka idinka ila la wadaago dan aan jeclaystay inaan dadka la wadaago raantii marka waxaan leeyahay in Muqdisho asxaabtii surprise dadka isku naqaan dadka social media aan isku baranay dadka maxay Muqdisho aan isla joogi jirnay dhammaan waan idin xiiso doonaa Muqdisho macaan عرفتيده وكونكيده قروحdeeda aydan waa muxiisi doona walaakin aakhira janalka aqoon ka daawanayno waxaan aakhir ugu dambeyn waxaan ku leeyahay walaal waxaan u baahanahay maanta oo kale ducada in meesha aan soo ilaahay in nabad uu geeyo sababtoo ah safar waa iska dhibaato badan marka waxaan rajeynayaa ducadaada inay la jirto si marka aan tagana muuqaal in kaga soo duubo oo mahadsantiin ujeedada muuqaalka waxaan u baahanahay ducadii bisan laf dhamaantiin qalbigayga ku tahay أنا